Sidee u ilaabi kartaa qof aad jeclaatay oo kaa tagay ama aad heli weyday? Run ahaantii way adag tahay inaad ilowdo qof aad jecel laba u qaaday, balse waxaa hubaal ah in wax kasta oo la isku dayo laguna dadaalo, samir iyo waqtina la geliyo, lagu guuleysanayo. Haddaba qodobadan isku day inaad samayso haddii uu arrinkani ku haysto, waxaa hubaal ah inaad ku guuleysanayso. Tan koowaad, xakamee naftaada. Waxaa hubaal ah haddii aad isku daydo inaad naftaada waxa ay jeceshahay aad ka xakamayso, inaad iloweyso waxaas. Tan labaad, isku ilow wixii hore. Isku day inaad ilowdo wax kasta oo qofkaas aad ku xasuusinaysid, sida sawirada iyo wixii la mid ah. Taasi waxay kaa saacidaysaa inaad qofkaas si fudud ku hilmaamtid. Tan saddexaad, la imow samir. Waxaa hubaal ah inay naftaada ku adag tahay inaad ilowdo qofka aad jeclayd, laakiin wax kasta oo aad u samirto waxaad helaysaa beddelkiisa, waayo horaa waxaa loo yiri samraa sidkiisa hela. Tan afaraad, waqtiyada aad ka hadlayso jacaylka waxa ku saabsan, tusaalaha u soo qaadan qofkaas, waayo taasi waxay ku xasuusinaysaa qofkaas iyo xasuusin idin dhexmaray. Taasina waxay kugu adkeynaysaa inaad qofkaas si fudud ku hilmaamto. Tan shanaad, aamin inay jiraan boqolaal qof oo ka wacan qofkaas aadna nasiib u yeelan karto. Tan lixaad, isku day inaad nolol cusub bilowdo, sida inaad asxaab badan oo aad farxad ka heliso la saaxiibto, sida inaad raasisto dadka ku xiiseeya adiga, waayo waxay kaa saacidaysaa inaad ilowdo qofka aad jeclayd. Ugu dambeyn, naftaada daacad u noqo, waxaadna ka soo qaadaa inaad tahay qof faa'iido helay oo aan khasaarin, waayo khasaaruhu mar buu yahay faa'iido aan la dareensanayn.